Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mar walba waxaan jecel lahay inaan wax faa'iidaysano dadka kalena u faa'iidaysano. Si taas suurtagal u noqoto, waxaan u baahannahay waxyaabo aan kala faa'iidaysano. Waxyaabaha aan kala faa'iidaysano waxay noqon karaan buugaag. Hadba meeshaan waxaan ku soo gudbin doonaa mareegtan buugaag aad iyo aad u faa'iido badan. Kolba waxaan bilaabnay buugga lagu magacaabo Ad-Dariiqu ila Tamayus ama Ad-Dariiqu ila Tamyiz oo uu qoray Dr. Ibrahim Al-Fiqi. buuggaas xoog weyn wuxuu saarayaa guusha qofkii rabo, guula qofkii soo doonayo, waxyaabaha ka soo hortaagan guulaha, iyo waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga rabo qof walba oo guul sameynayo. Taas suurtagaloodu aan faa'iidaysano, aan kala faa'iidaysano. Waxaan kaa codsanaynaa inaad nala baaqi noqoto, aan nala joogto ilaa aan ka dhamaynayno xalaqaadkii silsiladaha. Waxaana tan noqon doontaa xalaqadii ugu koowaad ama tii ugu koowaad aan ka bilaabno akhrinta buugga Ad-Dariiqu ila Tamayus. Waxaan kaa codsanaynaa mar labaadna inaad subscribe noo saarto channelkeena si uu u noqdo mid anaga dhiirigelin noo ah. Hadba aan bilaabno sharaxaadda buugga Ad-Dariiqu ila Tamayus. Marka hore aan ku salino nabiga sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Dr. Ibrahim Al-Fiqi buuggiisa wuxuu ku bilaabay sida muuqato su'aashaas oo ah: waa maxay sababta dadka qaar ay u guuleysanayaan dadka qaarna ay u guuleysanaynin? Su'aasha labaadna ay tahay: waa maxay sababta dadka qaar ay u noolaanayaan nolol aad iyo aad u fadli badan, nolol aad iyo aad ka khayr badan dadka kale? Waa maxay dadka qaar oo sabab u ah inay noloshooda maalinlaha ay ku noolaadaan nolol aad iyo aad u xiriiri ah? Wuxuu dhahay dadka dhammaantooda waxaa ka wada dhexeeyo 4 shay: inay dareemo leeyihiin, dareemaha shanta ah, hadday ahaan lahayd dhegaha ama indhaha iyo waxyaabaha la mid ah. Tan labaad ay ka wada siman yihiin dhammaan dadka guuleysto iyo dadka wada guuleysan waxay ka wada siman yihiin inay maalin leeyihiin, maalin daily ah oo ka kooban 24 saacadood. Markii loo barbardhigana daqiiqad ahaan ay noqonayso 1440 daqiiqo. Tan saddexaad ay ka wada siman yihiin dhammaan dadka guuleysta ama dadka aan guuleysan waa fikirka. Tan afraadna ee noqon karto waa inay fikirkooda soo saaraan. Markay fikiraan ka gadaalna ay fikirkooda ee banaanka soo saaraan, waxay ku fikiraan ay u hirgeliyaan. Su'aasha mar kale ayuu ku soo celiyo: waa maxay sababta dadka qaar ay u guuleystaan dadka qaarna aysan u guuleysan? Jawaabteedana waa raaciyay inay tahay jawaab aad iyo aad u fudud oo aad iyo aad u fudud. Qofka guuleysta wuxuu isticmaalaa afartan la soo sheegay wuxuu sameeyaa uu dhaqangeliyaa. Fikirkiisa ayuu ka shaqaysiiyaa. Markuu fikirkiisa ka shaqaysiiyo waa howlgeliyaa. Fikirka wuxuu ku fikira ayuu howlgeliyaa. Tan labaad wuxuu isticmaalaa waqtigiisa iyo daqiiqadihiisa ayuu kala maareeyaa. Markii laga waramayna waqtiga aad iyo aad u ballaaran wuxuu ka leeyahay kitaab dhan ayuu ku leeyahay. Waqtigana wuxuu ka mid yahay nimcooyinka Allah subhanahu wa ta'ala uu na siiyay. Dadka guuleysta iyo dadka aan guuleysan dhammaan waxay ka wada simannahay inay waqtigooda maareeyeen. Waqtigana markii laga waramayo bini'aadanka aad iyo aad ayuu u kooban yahay. Wuxuu ku nool yahay 60 sano ilaa markii la bilaabay ilaa 60 sano. Sheekha wuxuu sii galay boorinta uu dadka sii boorinayo. Wuxuu dhahay waxaa suurtagal ah in dadka qaar ee diraasada ay wax diraaseeyaan, laakiin diraasada aynan ihtimaam badan iyo ihtimaam aad iyo aad u fara badan aysan siinin. Dadka qaar in ay aadaan madrasada, laakiin madrasada ay aad iyo aad ihtimaam aad iyo aad u siinin. Dadka qaar inay shaqeeyaan, laakiin shaqadaas aysan ku shaqeynin wadadii Allah subhanahu wa ta'ala oo raali ku yahay. Taasna way tahay aafo aad iyo aad u weyn. Qofka markuu shaqeynayo hadduusan ku shaqeyn lillaahi ama wadada Allah subhanahu wa ta'ala raali gelisa, uu ku dhaqmaa waxyaabaha ribada, xanta, beenta, kala fogeynta dadka, burinta, xaasidnimada, wuxuu kala kulmayaa caqabad aad iyo aad u fara badan oo sabab u noqon karta inuu guul dareysta. Sheekha wuxuu dhahay waxaa arkaysaa in badan dadka qaar inay ka sheeganayaan markii laga waramayo kelimada raali ahaanshaha. Waxay ka dhigan tahay raali ahaanshaha in Allah subhanahu wa ta'ala uu raali ka noqdaa qofka wuxuu siiyay, inuu raali ku noqdaa qofka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay. Tusaale ahaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku siiyay shaqo aad iyo aad u fiican. inaad raali ku noqotaa, aad ku raali noqotaa, bal laga rabaa ina Allah subhanahu wa ta'ala ku mahadisa shukri la imaata. sababtoo ah mahadnaqa iyo alxamdi ina Allah subhanahu wa ta'ala mahadisid
oo mahadi aali imaadid waxay sabab u tahay nicmadaas hadda haystid inay alla subxaan inay ku joogto oo ku raagto nimcada kale soo socotana inay damin ku soo galiso oo ay ku soo jiido shiiqa halaas ka gadaalay wuxuu gali doonaa inuu sheego qiso aad iyo aad u faa'iido badan oo dhex martay nin xakiim ah iyo wiil kaasoo ah in wiil aad u murugeysnaay aakhirkana uu tusay wadadii ugu fiicneed wadada ugu guuleysan lahay oona guuleystay muuqaalkeenana halaas ayuu ku egyahay haddii muuqaalka waxaa ka faa'iiday fadlan like noo saar subscribe-tana naga hilmaamin si dhiirigelin noogu noqoto tan iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe